Caalamka aan ku noolnahay dowladaha iyo dowlad goboleedyada ka jira marka ay ciidamadooda tababar u soo xirayaan ama xeryaha militariga la booqdo, waxaa halkaas laga arkaa heykal dowladnimo iyo nidaam sax ah oo fadhiya. Hase yeeshee, dowladda Galmudug ee uu hogaamiyo madaxweynaha gadaalka gaarka ee siyaasadda ku bartay saaxiibtinimada iyo dabajoogga madaxdii asaga ka horreysay ee Axmed Qoorqoor iyo maamulkiisa ayaa markana baraya in ay tababar u soo xiraan ciidan aan wadanin darees ciidan iyo weliba agabkii lagu tababaray ay ka mid yihiin hubka iyo gaadiidka dagaalka. Maleeshiyo u eg dad shacab ah oo ku labisan dharka isboortiska ee ciidanku tababarka ku maro ayaa loo soo xiray koorso booliis ah, sida uu noo sheegayo madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Axmed Qoorqoor iyo caawiyayaashiisa oo u badan mooryaantii hore ay iskala soo qaraabteen wadanka iyo xoogaa u badan macallimiinta dugsiyada, kuwaas oo lagu dayactiray si uun loo hirgeliyo wax maamul u eg oo dadka Galmudug u dhashay loogu sheekeeyo halkan in ay dowlad ka jirto. Ku darse, gruubka kale ee soo saddexeeya waa muqayiliin reerahoodu waayeen wax ay ku bedelaan iyo nin door ayaga dhaama. Goobtan garaashka u eg ee loogu sheegaya xerada ciidan ee ciidanka tababarka loogu soo xiray ayaa waxaa saaka isugu yimid qolyo wata kabaha isboortiska, kaba ciidan iyo dharka tuutaha ah ee loo isticmaalo isboortiska ka samaysan calanka Soomaaliya, kuwa ay ciidanku ku maraan dhibowga. Ku darso, qaarkood waa ciidamo hore u soo shaqeeyay sida aad ka arkaysaan odaygan waayeelka ee ciidanka hortaagan, hadda ayaana naloo sheegayaa inuu yahay askari koorse ka soo baxay. Kaliya askariga calanka haya ee salaanta dhiibaya askariga ku xiga ayaa sita dab, asaguna waa sacbooley, waxa uuna wataa dhar shibil ah iyo qori. Haddaba halkan waa halka laga fiiriyo haykalka dowladnimo iyo nidaamka saxda ah ee jira marka xeryaha ciidanka ee dowlad leedahay la tago. Marka aad aragto muuqaalka noocan oo kale ah kuma cajabinayo, waxa meesha ka jirana waa qiyaali aan isku sheegayno. Dowladdii la wada doortay ee Galmudug, madaxweynihii lagu hanweynaa ee ku caanbaxay halkudhigga ah hogaamiye isku wadi kara Galmudug, ma waxaa u dambeysay in uu tababar u soo xiro ciidan wato dacas iyo dharka shacabka? Aaway saaxiibtinimadii madaxweyne Farmaajo ee ahayd saaxiib aniga ayaa ku soo saaray kursigana ku keenay? Aaway waxqabadkii dowladda ee loo ballan qaaday maamulka Galmudug ee uu Qoorqoor 24 saac ku wardin jiray aniga iyo Farmaajo, aniga iyo dowladda, taas oo aan wada ognahay in Farmaajo iyo dowladdiisuba ay haatan ka lug baxeen Qoorqoorka ceebaha iyo fadeexada badan dul hoganayaan oo aan wax taageerahana ka haysan haybtiisa, reerkiisa iyo dadka uu kursiga ku matalay reer Galmudug. Hase yeeshee, waxaa meesha ka muuqata in uu Qoorqoor gabi ahaanba fashilmay. Waxaa la yiri ninka aad kabaha u dhiibanayso kabihiisa ayaa la eegaa. Dadkayga reer Galmudug ee guracmayna waxay talada u dhiibteen ninkan jaahilka ah ee ahaan jiray gaandhariga hore, ka oo maantayna baraya inuu dowladda Galmudug oo tartan kula jirta dowladaha gayaankeeda ah uu tababar ugu soo xiro ciidamo wata dacas iyo dhar aan tuuta ciidan ahayn, hubna aan wadanin. Warbixintan qaawan waxaa idiin soo diyaariyay anigoo Cabdullaahi Jimcaale, halkaad ka daawanaysaana waa Cabdullaahi Jimcaale CJ. aad baad u mahadsan tahay. muuqaalkan si share gare si uu u gaaro dadka fadeexadaysan ee ku qanacsan maamulka Mooryaan Qoorqoor. mahadsanid.